Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan rabaa inaan fiidiyowan ku sharaxo qaabka loo fiiriyo riboodyada lacagaha ardayda laga qaado. Qaybo badan bay ka kooban tahay. Fiidiyowga hore waxaan kusoo baranay qaybtiisa lixaad qaabka loo soo geliyo lacagta laga rabo ardayda iyo qaabka looga qaado ardayda lacagta iyo qaabka loogu daabaco rasiidka ardayda. Fiidiyowgan waxaan xoogga saarayaa riboodyada lacagaha laga qaado ardayda. Marka toos waxaan u imaanaynaa qaybtan ay ku qoran tahay reports. haddaan ku dhufano qaybtan qaybo badan bay ka kooban tahay. Waxaan toos u imaanaynaa finance qaybtan ay ku qoran tahay. haddaan finance soo galno qaybo badan bay ka kooban tahay. qaybaha kale dhan uma baahnin, qayb ka mid aan u baahannahay qaybahan. Marka saa ujeedo waxa ugu horeeya waa balance fee statement. wuxuu kuu saarayaa statementyadii lacagihii waxa weeye la qaaday oo maaragtay noqonaya lacagihii qaar la bixiyey iyo lacagihii aan wali la bixin. saa ujeedid wuxuu inoo soo taxay lacagihii klaasyadii maaragtay tusaalahaan lacagta hore lama bixin, tan waa qayb baa la bixiyey, kuwan lama bixin. waxa weeye haddaad glass rabtid inaad sii fiirsid waad dooran kartaa. haddaad rabtid kala iskoolka dhan inaad wada fiirsid hal walba ku dhufanaysaa uu kuusoo taxayaa. qaybtaana waxaa ku jirta daily collection cash oo ah maalin kasta haddii aad rabtid inaad fiirisid lacagta la qaaday ama aad rabtid inaad aragtid baad halkan ka fiirinaysaa. tusaale ahaan date from iyo date to baa halkan kugu jira. from date waa taariikhda aad rabtid inaad kasoo bilowdid. waxaan rabaa kowda bisha laga bilaabo, waxaan rabaa lacagihii la bixiyey keliya inaan arko ilaa maanta oo la joogo 24 bisha. intaas waxaan rabaa lacagihii la bixiyey inaan arko. si arji baan leeyahay. saa ujeedada uu iisoo taxay maalin walba. maalmaha waxa weeye kowdii bisha oo kale waxba lama bixin. saa ujeedid labadii bisha waxaa la bixiyey $100 uu kuusoo taxayaa. lacagta aan intaasoo maalmood qaadnay kowdii ilaa 24 bisha waa 1400. haddii aad rabtid maalin walba gooni baad usii fiirin kartaa. meeshaan view ku qoran tahay ku dhufanaysaa, cidda laga qaaday baad sii fiirin kartaa. saa ujeedid waxaan ka qaadnay lacagtan Isxaaq iyo Caasho. Isxaaq waxaan ka qaadnay $130, gabadhanna waxaan ka qaadnay $150. marka qaybtaana waa qaybtaas. haddii aad rabtid inaad daabacatidna waxaa ku dhufanaysaa printer, PDF iyo Excel iyo qaybihii kale kuu diyaarsan yihiin. haddaan qaybta uga gudbo lacagaha la qaaday ardada laga qaaday inaan fiiriyo, waxaan tegayaa fee statement oo ah qaybtii aan fiirinayay lacagihii ma garanaysaa statementigii oo dhan aan rabay inaan fiiriyo. soo jeedaan dhaho wixii lacag statement la sameeyey oo dhan buu iisoo taxaya ardaydii. mid walba lacagta laga qaaday, lacagta lagu leeyahay iyo wixii qaybihii kale o dhan. saa ujeedid ardaygii ugu hore iisoo saaray sawirkiisii. saa ujeedid ardaydan kale iyo dhammaan ardaydii iskoolka dhiganaysay oo dhan mid walba lacagta lagu leeyahay iyo maaragtay joornaal dhammaystiran buu kuusoo saarayaa. qaybtaasina waxay kuu sheegaysaa fee statementigii. haddaan tagno qaybtan balance fee wuxuu kuusoo saarayaa inaad galaas u fiirin kartid galaas walba inta lacag lagu leeyahay. tusaalahaan form 4 baan dooranaynaa. form 4A baan rabnaa inaan fiiriyo, si khaasa u fiiriyo lacagta lagu leeyahay. saa ujeedad wuxuu isoo saaray lacagtan ayaa lagu leeyahay, labada arday baa lagu leeyahay, Ismaaciil iyo Isxaaq baa lagu leeyahay. tusaale ahaan lacagta laga rabay waxay $410. wuxuu bixiyey 210. ninkaana wuxuu bixiyey 130. waxaa ku dhiman 200. ninkaana waxaa ku dhiman 280. total waxaa lacag ku dhiman galaaskan $480. marka guud ahaan waxa weeye intaas oo qaybood bay ka kooban tahay iyo qaybo kaloo badan. marka muhiimadda waa fahmaysaan. waa report kooban inaad maalinle u fiirisid lacagihii maaragtay la bixiyey, inaad fiirin kartid lacagihii galaaska ku dhimanaa, cidda galaaska lacagta lagaga sii leeyahay, inaad statementiga oo dhammaystiran fiirisid. marka fiidiyowgan intaas ayaan rabaa inaan uga baxo. fiidiyo dambe ayaan arki doonaa qaabka loo sii isticmaalo riboodyada. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. wixii aad fahmi weydeen waadna weydiin kartaan. mahadsanidin.